صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة دروستاني أي هالك كسي ودنا أو alkeneski ayaynu ku jirnay. alkenesku waxaan soo qaadanay isomeris ay lahaayeen sida alkeneska oo kale aan soo qaadanay iyo sida isomeriska u sameysmayaan iyo sida loo magacaabayo. laakiin iyagu waxay leeyihiin wax loo yaqaan stereoisomer ay alkenesku leeyihiin oo aysan lahayn asxaabta kale oo ah alkeneska. marka waxaa jira stereoisomers kuwa hore waxay ahaayeen isomeris kuwa maxaa la hayaa stereoisomers of alkenes. stereoisomers of alkenes maxaa la yidhahdaa marka stereoisomers maxay yihiin? stereoisomerska are molecules waa moleculo with the same structural formula kuwaasoo structurekii isaga midka ah but different arrangement laakiin ku kala duwan arrangementiga ama siday u ratiban yihiin of atoms in space. yani atomiska qaabkay u ratiban yihiin ay ku duwan laakiin structure waa isku mid. halkaan ha ku khaldin isomeriski iyo maxay ahaayeen same molecular formula but different structure. kuwa kan laakiin waa same structural formula ama different ama same structure weeye but different arrangement laakiin iyadoo structure isku mid yahay ayaa arrangementiga ama ratibnaanta atomiska ay ku kala duwan yihiin space kay kaga dhigan yihiin. but different arrangement of atom space way arki doonaa maxaa laga wadaa different arrangement macnaheed waxaan ku arki doonaa molecularada ama geneska soo socda. haddaba to create stereoisomer si stereoisomer aad u samayso ama uu u samaysmoba laba shuruudood baa loo baahan yahay. labada shuruudood ayaa loo baahan yahay. labadaas shuruudood waa midda ka saaraysa alkenesku inaysan yeelan karin stereoisomer. tan koowaad waxa weeye there must be waa inuu jiraa restricted free rotation of double bond. waa inuu jiraa horta restricted free rotation of double bond. double bondka oo ah aan wareegi karin free rotation ma samayn karo oo restricted weeye waa xaniban yahay yani rotation ama wareeg ma samayn karo. marka maxaa ka cad inuu meesha double bond ku jira single bond hadduu ku jiro stereoisomer ma jiro. waa inuu meesha ku jira double bond horta koowaad oo ah waayo double bondku waa restricted free rotation oo wareeg ma samayn karo uu ka adag yahay moleculeku markaa bondigaas ma wareegi karo laakiin single bondku wuxuu samayn karaa rotation. marka there must be restricted free rotation of double bond. tan labaad each carbon must have different groups. labada carbon oo ka dhaxeeya double bondkuna waa inuu haystaa different groups ama atoms kala duwan ama groups kala duwan waa inay haystaan. wax isku mid ah haddii mid kasta ku dhegan yihiin ama mid ka mid ay ku dhegan yihiin halkan waxa weeye ma noqonayo stereoisomer ma noqonayo. waxay ka kooban tahay laba carbon waa 18 weeye laba carbon ay ka kooban tahay. okay carbonkan marka double bondku waa restricted rotation ma wareegi karo. haddaad rabaa inaad carbonkan wareejiso si hydrogentan kor u mariso chlorinetan hoos u mariso ma dhacayso. kana sidoo kale haddaad inaad wareejiso oo kan aad rotationta maroojin bariyada haddaad kan maroojiso oo chlorine aad tirada kor mari hydrogentan hoos mari ma ogolanayo inuu jabo maaha waayo double bondku waa restricted rotation ma wareego. tan kale maxaa taas waa shuruudda koowaad way haystaan. kan wuxuu haystaa double bondki kana wuxuu haystaa double bondki. taas marka labada molecule maxay haystaan shuruuddii koowaad oo ahayd restricted rotation waayo double bondku lama maroojin karo ma wareegi karo. tan labaad shuruuddii kale maxay ahayd labada carbon oo double bond ka dhaxeeya waa inay leeyihiin mid kasta atomyo kala duwan. marka maxaa ku aataa two different groups on each carbon waa sax. carbonkan iyo carbonkan double bond ka dhaxeeya. carbonkan maxaa ku dhegan hydrogen iyo chlorine way kala duwan yihiin. kana maxaa ku dhegan chlorine iyo hydrogen way kala duwan yihiin. marka labada carbon shuruudda koowaad maxay ahayd waa inuu jiraa double bond oo double bondkana maxaa lagu yaqaanaa restricted rotationkiis waa xaniban yahay oo ma wareegi karo rotation ama maroojin laguma samayn karo.
لا شروط لبعض محايد لبعض كربون ودول بون كدحيا وإنه ميت كسته وكل دقيقة لبا شيء أو كردون أما لبا أتم أو كردون أما لبا جروب أو كردون كربون كان واحد كل دقيقة هيدروجين يا كلورين كربون كان واحد كل دقيقة كلورين يا هيدروجين ولبا أتم أو كردون كان ولبا أتم أو كردون هل كان حاكي على مكان مولكيول كان محو أقبليا لبادي حرب وأقبليا لبادي كي كواد وحوا شروط كواد دول بوينو كجدا restricted rotation aan wareegi karin shuruuda labaadna maxaa weeye waa inuu carbon kasta laba shay kala duwan ku dhagayn soo kan maxaa oran karnaa marka waa stereo isomer baa oran karnaa waayo labada shuruud baa aqbalay kanna waa la mid midigta isagana double bond buleeya waa restricted rotation kan sidoo kale carbon kan maxaa ku dhagan chlorine iyo hydrogen way kala duwan yihiin carbon kan ku dhagan chlorine iyo hydrogen way kala duwan yihiin maanta labada molecule waxaan oran karnaa waa stereo isomers صوت ومحي وهي أقبليان يعني restricted rotation لكن محي كوكا دوين دايما محي كوكا إحنا فهلوكا different structural formula لو أنا هذا قرنه محي نقايا كان structure كيس هو C2 لبا كربونا H2 لبا هيدروجين هي Cl2 مكا C2 H2 Cl2 وكوكا لبا كربونا لبا كلورين لبا هيدروجين وصح كان محو نقايا إسنا و C2 ولبا كربونا أي H2 ولبا هيدروجين Cl2 لبا كلورين هلكا محاكا waxay isaga mid ka yihiin structural formula haddaan structural formula kan qoro wuxuu noqonayaa kan C2 H2 Cl2 kana wuxuu noqonayaa C2 H2 Cl2 haddana maxay ku kala duwan yihiin laakiin but they are different arrangement of atom space halka aan fasirno marka molecule kan waxa ku dhagan carbon kan hydrogen iyo chlorine laakiin yaa sareeya halkan hydrogen da sareysa yaa hooseeya chlorine kana carbon ka dhinacan soo xigay isagana yaa sareeya chlorine ta kana yaa hooseeya hydrogen halka marka waa isweydaan kan waxa sareeya hydrogen chlorine baa hooseysa kana chlorine baa sareysa hydrogen baa hooseysa carbon ka labaadna fiiri isagana chlorine tu kor bay xigtaa hydrogen ta hoos bay xigtaa kana carbon ka labaad fiiri chlorine tu kor bay xigtaa hydrogen tu maxay hoos bay xigtaa xagga iska waafaqayaan sooma laakiin maxaysan iska waafaqayn carbon ka hore oo maxaa weeye kan hydrogen tu kor bay xigtaa chlorine tu hee hoos bay xigtaa kana chlorine tu baa kor xigtaa hydrogen baa kor xigtaa halka maxaa ka cad they have different arrangement of atoms in space kan space ka hydrogen tu waa kor kana waa hoos ee chlorine tu kana chlorine tu waa kor hydrogen tu waa kor halka maxaa hydrogen tu waa hoos halka maxaa ka cad marka labadan maxaan dhihi karnaa waa stereo isomers why because they have double bond restricted rotation labo and each carbon atom there is a different groups atom kastana maxaa ku dhagan different groups ayaa ku dhagan xagga arrangement inay ku kala duwan yihiin labadoodu oo arrangement of atoms in space way ku kala duwan an example kan fiiri marka su'aal weyna weydiiyey labadan atom isku mid ah are these molecules stereo isomers ma yihiin stereo isomers sidii labadii haddaan soo aragnay halkan horta dhowr bond ku jiro maca salaama saasay kaga baxeen ba marba hadduusan dhowr bond meesha ku jirin sheekadu waxa weeye ma noqonayaan he stereo isomer jawaabtu maxaa weeye waa no because sababtu waa maxay there is a free rotation for the single bond ka free rotation haddaan kan maroojiyo hadda kan yaa kor xiga chlorine halkan yaa hydrogen baa haddaan maroojiyo hydrogen kor baan geyn karaa marka maxay la mid noqonaysaa marka ama haddaan hadda kan soo maroojiyo maxaa dhacaysa ama kan bixi haddaan maroojiyo hadda kan hore haddaan maroojiyo carbon kan kuwa haddaan maroojiyo chlorine kor bay aadaysaa hydrogen hoos bay aadaysaa marka maxaa dhacaysa marka labadii chlorine kor bay wada xigayaan sida kanoo kale noqonay marka double bond waa la maroojin karaa oo waxa la yiraahdaa isagu waa free rotation buu leeyahay marka waxa weeye marka su'aashan jawaabteeda hadii la yiraahdo ma stereo isomer ma jawaabtu waxa weeye no marka yes maaha waa no because waxa weeye there is a free rotation haga maxaa ka jira free rotation way rotation kiisu waa free si xor ah ayuu u wareegi karaa
the single bond so the molecules are the same labada molecule maxay waa isku mid wey haddii laakiin su-aasha ay ahaan lahayd are these molecules the same yes bay noqonay jawaabta laakiin halkaa yes ma dhinahay waa no because su-aasha waxa weeye are these molecules stereoisomers ma yihiin kuwa stereoisomers no waayo maxaysan aqbalayn xeerka koowaad oo there must be double bond restricted rotation waa inuu jira maxay double bond halkana waxaan ku aragnaa single bonds so they are not isomers halkaas jawaabtu waxay noqonaysaa no reason-kana waxaa weeye because there is a free rotation waxaa ka jira halkan free rotation for the single bond so the molecules are the same labada molecule maxay noqonayaan same oo macnaheedu waa maxay haddaan kaarboonkan maroojiyo wuu wareegaya double bondku si fudud buu u wareegaa chlorine kor bay xigaysaa hadday chlorine kor aado hydrogen hoos soo aado labadii chlorine kor bay xigayaan waxay la mid noqonayaan kan oo kale oo labada chlorine isagana waa kor sidoo kale haddaan kan sidiisa u daayo oo aan kan kaarboonkan maroojiyo kaarboonka haddaan maroojiyo chlorine kor bay hoos bay soo aadaysa waxaan leeyahay kan haddaan wareejiyo kaarboonkan haddaan maroojiyo kan koowaad haddaan maroojiyo chlorine hoos bay soo aadaysa hydrogen kor bay aadaysa marka maxaa ka cad marka waxa iswaafaqaya hydrogen iyo chlorine sida kanoo kale noqonaya marka labada molecule they are same oo isku mid mana noqonayaan stereoisomers because of why free rotation for the single bond halka waxa ka jira free rotation baa ka jira oo double bondku ma wareego laakiin single bondku si fudud ayuu u wareegaa marka are these molecules isomers baa la weydiiyey marka waxaan leenahay answerku wuxuu noqonayaa yes labada molecule waa isku mid sababtu waa maxay ma noqonayaan stereoisomers maxay aqbalayaan xeerkii koowaad labadii hadda aan soo dhaafnay maxay ahaayeen yani kan maxaa ku dhegan different groups chlorine iyo hydrogen kana chlorine iyo hydrogen waa sax laakiin muxuusan aqbalayn double bond buusan lahayn soo sax ma kana eeg kana isagana waxaa waaye isagina wuxuu aqbalayaa xeerkii koowaad oo ahaa double bond restricted rotation waa sax oo double bond way leeyihiin labada molecule laakiin maxaysan aqbalayn kaarboonkan waxaa ku dhegan laba chlorine kaarboonkan waxaa ku dhegan laba chlorine oo isku mid wey kana waxaa ku dhegan laba hydrogen kana sidoo kale laba hydrogen xaggana laba chlorine macnaheedu waa maxay xeerka koowaad muxuu ahaa waa inuu meesha double bond ku jiraa markuu suu u noqdo stereoisomer waa sax labadu waxay leeyihiin double bond haye shuruudda labaad waxay labada kaarboon oo double bond ka dhaxeeya mid kasta waa inay ku dhegan yihiin laba atom ama laba group oo kala duwan halkan waa same atoms baa ku dhegan laba chlorine kan ku dhegan oo isku mid ah kana laba hydrogen kana sidoo kale laba hydrogen ku dhegan kana laba chlorine macnaheedu waa maxay they are not isomers ma noqonayaan stereoisomers marka answerku muxuu noqday waa yes molecular tanu halkaa waxay noqonaysaa no jawaabtu waa maxay waa no halkaas I'm sorry halkaa waxaa ku qoraysaa maxay no because there is waxaa jira same groups waxaa ku dhegan same groups attached on carbon double bond carbon double bond ka labada carbon ee double bond ka dhaxeeya yani carbon maxaa laga wadaa yani labada carbon baa lagu soo celiyay maayo marka same group baa ku dhegan carbon double bond oo kan waxa weeye labada group yaa iyo chlorine kana waa hydrogen marka same group baa ku dhegan labada carbon ee double bond ka dhaxeeya mid kasta laba atom oo isku mid ama laba group isku mid ah ku dhegan so if we rotate the molecules at the left side kan bidixda ah haddii aan wareejino 180 degree maxaan wareejinaynaa kaan soo qaadnay xaggan keenay kaarboonkan xagga usoo wareejinay haddaan 180 degree aan wareejino iyo moleculekan 180 degree rotation ku samayno to the right xagee la wareejinaya dhanka midigta haddaan aan wareejino we get the right side molecule kanoo kala helayna oo haddaa kan xagga usoo wareejiyo labadii chlorine xaggay soo marayaan laba hydrogen xaggay marayaan iyo la mid noqonaya ee kanoo kale u noqonaya marka halka maxaa ka cad molecular waa maxay ma noqonayaan isomers ma waayo waxay aqbalayaan xeerkii koowaad oo ah double bond bay leeyihiin laakiin maxaysan aqbalayn xeerka labaad oo ah labada carbon double bond ka dhaxeeya mid kasta waa inay ku dhegan yihiin different groups laakiin halka maxaa ku dhegan same group iyo same group ama laba chlorine laba hydrogen kana laba hydrogen laba chlorine marka sidoo
marka haddii marka moleculekan aan xagga u wareejiyo dhinaca midig aan ka wareejiyo 180 degree kaarboonkan iyo labadiisa chlorine xagga marayaan kaarboonkan iyo labadiisa hydrogen xagga marayaan iyo la mid noqonaya marka kan ama kan laftigiisa haddaan xagga u soo wareejiyo ka hor kan haddaan 180 isagana wareejiyo oo leftiga u wareejiyo kaarboonkan iyo labada chlorine xagga soo marayaan kaarboonkan iyo labada hydrogen xagga marayaan marka maxay noqonaysaa kan la mid noqonaya halka maxaa ka cad marka labada molecule waa same iyagana oo kuwa isku mid ah ma noqonayaan stereoisomers laakiin inaga su'aashayna waxay tahay haddii su'aashayna ahaan lahayd halkan su'aashayna ku qoran haddii ahaan lahayd moleculeada tani ma yihiin kuwa isku mid ah yes baan dhihi lahayd laakiin hadda inaga waxaan la weydiiyey are these molecules isomers ma yihiin isomers ama stereoisomers ma yihiin marka kan no way aga yes maaha reasonkuna waa ka ku qoran yahay sababta keentay maxaa weeye waayo labada shuruudood waxay ahaayeen horta waa inuu meesha ku jiraa double bond restricted rotation taasoo midda koowaad shuruudda labaadna maxaa weeye labada carbon double bond ka dhexeeya mid kasta waa inay ku dhegan yihiin different groups laakiin kan xeerka ma aqbalayo oo kan waxaa ku dhegan same group laba chlorine kan waxaa ku dhegan same group laba hydrogen marka waa hadday kala duwanaan lahaayeen markaa way aqbali lahayd good kii saddexaad example-ka saddexaad aan eegno isaga waa kana are these molecules stereoisomers buu ku yidhi kuwa kan ma yihiin stereoisomers answerku wuxuu noqonayaa yes kuwa kan waa sax why labadii shuruudood baan ka eegayna waa midda koowaad ee horta double bondka waa ku jira labadaba waa sax double bond way ku jiraan sooma marka taas xeerkooda ay aqbalayaan qodob shuruudda koowaad shuruudda labaad waxay ahayd labada carbon double bond ka dhexeeya waa inay different groups ku dhegan yihiin waa sax kana waa aqbalaya hydrogen chlorine hydrogen kana sidoo kale chlorine hydrogen marka waxaan leenahay labada molecule maxay yihiin waa stereo isomers weeye marka answerku waa maxay waa yes because there is a double bond answerku reasonku ma maxay because baan leenahay there is waxaa jira double bond restricted rotation waa sax oo double bond uma wareegayo isagu oo si free uma wareegayo haddana inaan kan maroojiyo ma maroojismayo hydrogen haddana inaan kor mariyo chlorine hoos soo mariyo waan damca inaan maroojiyo carbonkan ma maroojismayo because of double bondkaa diiday waa restricted waa adagyahay isagu single bondko kale ma marka there is a double bond restricted rotation and each carbon atomna each carbon double bond labada carbon ee double bond ka dhexeeya mid kasta has wuxuu leeyahay different groups of atoms maxaa ku dhegan atomyo kala duwan ayaa ku kala duwan kan hydrogen iyo chlorine kan chlorine iyo hydrogen kana sidoo kale xagga waxa ka dhegan chlorine hydrogen way kala duwan yihiin chlorine iyo hydrogen oo yihiin different groups waa hydrogen iyo chlorine ayaa ku dhegan taas maxay ku caddaynaysaa marka labada molecule inay yihiin stereoisomer marka labada molecule shuruudda koowaad aad ka eegayso waxa weeye horta double bond ma leeyihiin way leeyihiin yes shuruudda labaad waxa weeye labada carbon oo double bond ka dhexeeya ma different groups baa ku dhegan mise same groups hadday different groups ku dhegan siduu kuwan oo kale chlorine hydrogen chlorine hydrogen haddii saa ugu dhegan yihiin different groups double bondna uu leeyahay waxay leenahay waa stereoisomers waaya halkan marka waxaan eegi doonaa marka bal videogan aan eegno inoo soo socda si aan bal waxuun uga fahanno marka stereoisomerska wuxuu aynu ku saacidayaa inayn fahanno bal stereoisomerska waxay yihiin stereoisomerski waa EZ stereoisomerism explained double bond restricted rotation waa waxa mas-uulka ka ah inuu soo ismo isomerismka inuu soo ismo kaas waa molecularka koowaad
labada molecule saa ku aragtaan halkan waa double bond iyo double bond kan waxa ku dhegan cadaanka waa hydrogen haddii la wareejiyo muxuu noqday same bay noqday awal way inay kala duwan yihiin mooyayse laakiin markii la wareejiyo maxaa noqday hal chlorine ku dhegan kan maxaa ku dhegan laba hydrogen kan waxaa ku dhegan hydrogen iyo chlorine kan waxaa ku dhegan hydrogen iyo chlorine kan waxaa ku dhegan laba hydrogen marka waa same waayo waa inuu labada carbon different kan waa sax different groups waa yihiin waa hydrogen cagaarka waa chlorine baa laga wadaa kanna waa hydrogen iyo chlorine waa sax laakiin carbon kan waxaa ku dhegan hydrogen iyo hydrogen isku mid ah cadaanka waa hydrogen labatan iyadana fiiri dhanka waxaa ku dhegan laba chlorine xaggan waxaa ku dhegan laba hydrogen kanna waa maxay waxaa ku dhegan laba chlorine haddii marka kan aan wareejiyo 180 degree haddaan kan wareejiyo kan la mid noqonaya bal fiiri aduu marka la soo wareejiyo 180 degree same bay noqonaya kan aan wareejinaynaa 180 degree ayta goortuu wareegay muxuu noqday isagiiba labadii chlorine-tan xaggii soo mareen cagaarka awal xaggii marayeen marka xaggii soo mareen mar haddii marka labadii chlorine-ta ee xagga mareen kan labadii chlorine xagga mareen same bay noqonayaan marka maxay noqonayaan marka waa same labadiiba same bay noqonayaan soo marka lama dhigi karo kuwaana stereo isomers lama oran karo midka example-ka saddexaad iyagana haddaan eegno waa kuwa kan iyagana kan waxaa ku dheg double bond bay leeyihiin waa sax kana double bond buu leeyahay kan waxaa ku dhegan hydrogen iyo chlorine kan waxaa ku dhegan chlorine iyo hydrogen cagaarka waa chlorine kana sidoo kale waxaa ku dhegan chlorine iyo hydrogen kana chlorine iyo hydrogen waa kuwan marka waa different way iyagu isku mid maaha waa stereo isomers labada xeerba way aqbalayaan iyagu marka waxaan leenahay waa stereo isomers waxay aqbaleen xeerkii way aqbalayaan haddii la isdul saaro superfos isku mid noqon maayaan oo yaa isku beegmaya chlorine-tani waxa isku beegmaya hydrogen-tan chlorine-tan iyo chlorine-tan isku beegmayaan hydrogen-tan waxay ku beegmaysaa chlorine-tan hydrogen-tan waxay ku beegmaysaa hydrogen-tan marka waxaa isku beegmaya chlorine iyo hydrogen aan islahayn haddii la isdul saaro superimpose baa la yihahdaa halkaa haddii superimpose la isku sameeyo isma waafaqayaan halkaa waxaa ka cad labadatan molecule haddana wuu wareejinayaa fiiri markii la wareejiyo naayta xaggu usoo wareejiyo haddana weli way ku kala duwan yihiin haddana labada hydrogen-ta waa kor maray labadii chlorine-ta waa kor maray kanna hydrogen iyo chlorine baa kor xiga hydrogen iyo chlorine hoos bay xiga marka haddana weli way ku kala duwan yihiin naayta dhinacaan haddana u wareejiyey oo haddana 180 baa haddana wareejiyey haddana weli waa sidii labadii hydrogen-ta waa kor xiga kanna maxaa kor xiga waxaa kor xiga hydrogen iyo chlorine kan maxaa hoos xiga labadii chlorine-ta ahayd kana maxaa hoos xiga chlorine iyo hydrogen baa hoos xiga weli waa marka way kala duwan yihiin waa different marka conclusion-ka muxuu noqonayaa kuwa kan waa different why sababtoo ah marba haddii ay aqbalaan labadii shuruudood marnaba ma noqon karaan same maxay aqbaleen shuruudda koowaad maxay ahayd kuwan double bond iyo double bond buu leeyahay saas waa shuruudda koowaad double bond baa kan ku xiga labada xariiqood meesha ku jira double bond bay u taagan yihiin kana double bond buu leeyahay haye kan kaarboonka bidixda ah maxaa ku dhegan hydrogen iyo chlorine waa different group kana maxaa ku dhegan chlorine iyo hydrogen waa different group kana sidoo kale way kor waxaa kaga dhegan kaarboonkan hydrogen iyo chlorine waa kala duwan yihiin kan waxaa ku dhegan hydrogen iyo chlorine waa kala duwan yihiin cadaanka waa hydrogen cagaarkuna waa chlorine macnaheedu waa maxay dhan kasta haddaa u wareejiso kuwani ma noqonayaan same ma noqonayaan so they are stereo isomers kan laakiin labadatan waa same waa aragtaa markii la wareejiyey same bay noqdeen waayo kan waxaa ku dhegan laba
دول بونك مشغولية وصح وحير كود ويقبليان وصح لكن كان كربون كان كل جن هيدروجين يكون وأقبل يسوي والديفرنت لكن كربون كان أقبلين لا مثل يهدو أقبل أو كلا أقبل ويمن نقايا كان واحد كل جن لبه هيدروجين كان نسيت كلا واحد كل جن لبه هيدروجين هذا كان لكن كلوني هيدروجين بكل جن صح لا ما كان لا كربون باربعة مثل يلا مرة وأنا مثل سيد كان محاكو دجن هيدروجين يكلورين يا هيدروجين لو هذا كربون ما ديفرنت جروب بكل جن كان نسيت كلا هيدروجين يكلورين يا هيدروجين يكلورين لو هذا كربون واحد كل different groups وهي مثل لو هذا كربون بأي شيء كده يخصصها مثل لو هذا مولكيول والسين من نقول كران هي ستيريو ايسومرز كان وعلمي كربون كان واحد كل جنبه كلورين كان واحد كل جنبه هيدروجين كان نسيت كربون كان واحد كل جنبه كلورين كان واحد كل جنبه هيدروجين يبنوا والسين لكن دول بوم بيلين أوكي هذه لكن نعكس أول رجسو مركز واحد يسكب بيجمع اللي هذه كلورين تاع يسكب بحاجة كده يعني لو لا هيدروجين تاع يسكبنا هو corresponding variable y يعني مركا halka marka uu cadeeyay maanta uu ku tusaya halkan maanta labadan waa kala duwan yihiin buu ku tusaya halkan uu hareeyay si ay u aragto halkan maxaa weey waa laba group oo kala duwan ayaa haysta kana waa sidii oo kale laba group oo kala duwan baa haysta carbon kasta dhowr boona weeray marka waa different way si kasta hada ay yeesho masto helaysid waxay isaga mid ka yihiin marka waxa weeye is that isomerism exists is that كواكبنا واحد لجوده only when both alkene carbonates لو كربون alkene كأما لو دول بون كالكين محك وضع لو كربون دول بون كله have only two distinct substrates when يكون لجين لو شيء يكردون bonded to them وأنا متكسلية two distinct groups أما two distinct substances لو شيء أو substrates أما لو شيء يكردون وين يكون لجين كربون كذا هيدروجين كلورين كلورين هيدروجين هيدروجين كلورين كلورين هيدروجين good saas marka ay u kala duwan yihiin kuwaasuna kala qaadeen halka waxaan ku qaadan doonaa marka bal types of stereoisomers marka haddaan soo aragnay shuruudihii stereoisomeriska ay ku samaysmayeen bal intee loo qaybiyaa stereoisomeriska imisa ayay u qaybsamaan there are waxaa jira two main types of stereoisomers given below waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo stereoisomeriska loo qaybiyo marka stereoisomer laga hadlayo laba group baa loo qaybiyaa kan koowaad waxaa loo yaqaanaa geometric stereoisomerism kan labaadna waxaa loo yaqaanaa optical stereoisomerism geometric stereoisomerism iyo optical stereoisomerism kan inaga inama khuseeyo opticalka inaga syllabuskeena waxaana ku jira geometric stereoisomerism isaga marka aan qaadanayna marka geometric stereoisomerism the geometric stereoisomerism can be described isaga waxaa loo qeexi karaa ama loo muujin karaa ama loo tilmaami karaa in two ways laba siyood ayaa u sheegi karaa oo kala ah cis-trans geometric stereoisomerism inaa isticmaasho cis iyo trans oo moleculeska marna cis laga horeysiinayaa marna trans baa ka horeysiinaysa way arki doonaa iyo inaan isticmaalna ez hadda ay wataa soo arkaynay ez geometric stereoisomerism oo e iyo z in la isticmaalo waa isla meeshii laakiin waxaa inta badan inaga aan qaadanaynaa cis iyo trans baan qaadanaa laakiin e iyo z waa jiraan waa same marka ama cis-trans geometric stereoisomerism oo cis iyo trans baa qaadanaysaa ama ez baa qaadanaysaa waa isla meesha waaya cis-trans isomerismka markiin ka hadlayno oo cis iyo trans ay yihiin involve waxay khuseeyaan the position of hydrogen atoms positionka hydrogen atomiska ama halkay kaga dhegayn hydrogenadu on carbon double bond labada carbon ee double bond ka dhaxeeya halkee hydrogenada ay kaga dhegan yihiin markaas mar waxa la dhahay marka cis marna trans goormay noqonayaan cis goormaysa noqonayaan trans waa kan if the hydrogen atoms are on same side haddii labada hydrogen oo labada carbon ku kala dhegan
oo double bond ku jira labada carbon oo double bond ka dhaxaya hadii labada hydrogen ee ku dhagan ay yihiin same side isku dhinac hadii xigaan hal dhinac hadii wada xigaan of the carbon double bond hadii hal dhinac ka xigaan oo isku dhinac hadii xigaan it is waxaan noqotaa cis isomer ayaa la hayaa cis macnaheedu maxaa weeye markaa cis means same side erayga cis waa latin erayadaasu marka waxaan soo maxay waa same side marka hadii labada hydrogen ay noqdaan same side of the carbon double bond double bond ka hadii isku dhinac kaga jiraan marka waxaan leenahay moleculekaas waa cis isomerkaas wuxuu noqonayaa cis isomer maxaa dhacaya hadii isku soo horjeedaan if the hydrogen atoms are on same side on opposite side hadday yihiin kuwa isku soo horjeeda across the carbon double bond it is maxaa leenahay goorta trans isomer marka maxaa lagu tilmaamaya marka waa trans isomer trans means opposite or across opposite ayaa la macnaa ama across ku yahay si isweydaar ah markay isugu yaaliin ama talantaali markay isku yihiin way marka labada hydrogen baad eegaysaa ee labada carbon ee double bond ku dhaxeeya labada carbon ee double bond ka dhaxeeya labada hydrogen ee iyaga ku dhagan ayaad eegaysaa hadii labada hydrogen ay isku dhinac ku yaalaan marka waxa leedahay waa cis isomer hadii isku soo horjeedaan ama across ay yihiin kuwa talantaaliya z oo kala qaabka z ka sameynaya marka waxa leedahay maxaa weeye waa trans isomer ayuu noqonayaa marka salaam ku fahmina waa kana waa kuwa kan marka labada tan molecule bal eeg halkan double bond uu ku jira kana double bond uu jira yes xeerka kood way aqbalaya kan waxa ku dhagan chlorine iyo hydrogen carbon kan waxa ku dhagan chlorine iyo hydrogen waa different groups ba mid kasta ku dhagan saasoo kan ku aqbalaya stereo isomer inuu yahay kana halka waxa ku dhagan chlorine iyo hydrogen waa different group kan oo chlorine iyo hydrogen waa different group sida daadi isaguna saas wuxuu ku yahay marka inuu yahay mid ah stereo isomer kuwan marka waa geometric way maaha optical kan soo sheegnay okay labada hydrogen maxay isku yihiin marka waa kuwa kan blue bond ku muujinay kan hydrogen iyo chlorine ba ku dhagan kan hydrogen iyo chlorine laakiin labada hydrogen maxay noqdeen opposite side way iska soo horjeedaan labada chlorine taana way iska soo horjeedaan hadii marka labada hydrogen ta iska soo horjeestaan maxaa leena marka waa trans waa opposite side soo hadii opposite isku noqdaan marka waa trans xanay marka waa trans 1,2 dichloroethane 1,2 maxaa laga wadaa laba chlorine maxay haysan carbon koodi carbon 1,2 way iska dhigay kada maxaa dhigay maadaama laba carbon wuxuu yahay dichloroethane way iska dhigay adaa raacsan waa isla meeshii marka trans baraayeen marka magaciisa awal muxuu ahaa 1,2 dichloroethane baa maxaa laga horeysiinay marka trans oo maxaa weey marka magacaasi oo magaca caadiga ah trans kan maxay sheegaysaa geometric stereo isomerism ka uu yahay oo muxuu noqday marka trans why because labada hydrogen maxaa weeye waa opposite side way kana fiiri labada hydrogen waxa laga dhigay yaani barbal kalarka midabkaas ayaa laga dhigay guduud xigeenka barbalka ama pinkiga u eg labadii marka maxay ku yaalin isku dhinac labadii chlorine isku dhinac bay ku yaalin labadii hydrogen isku dhinac bay ku yaalin marka maxaan oranaynaa waa cis baan leenahay marka magaca intiisa kale waa isla meeshii wuxuu noqonayaa 1,2 dichloroethane laakiin maxaa lahayaa cis marka ethene ayay ahayd waa laba carbon oo double bond ka dhaxeeya maxaa ku dhagan laba chlorine oo mid carbon koowaadna xabad baa ku dhagan kana xabad baa ku dhagan maxaa lahayaa dichloroethane baa la oranayaa badanaa magacyada hydrogen kama muuqato waa iska yaqaanaa haddii chlorine iyo chlorine dhan kale hydrogen baa taala marka magaca badanaa hydrogen lama muujiyo atomka kale ayaa la qoraa dichlorochlorine waa in la muujiyaa dichloroethane bay ahayd marka 1,2 asna muxuu sheegayaa labadii carbon ku kala dhigan yihiin carbonka labaad iyo carbonka koowaad badanaa lambarada looma baahna haddii ay wixii laba carbon oo tiraah iska yidhaa laakiin markaysa carbonadu ay badan yihiin waa khasab inaad sheegto tirada laakiin hadda waa iskaga tegi kartaa haddaa badhana mushkila male marka maxaan leenahay marka kan waa laba stereo isomer ama geometric isomeriski kanna waa trans waayo hydrogenku iska soo horjeedaan kanna waa cis laakiin maxaa horta koo intaadan trans cis aan dhihinba
وهنا هرت شيكتا هرت ما يهين ستيريو ايسومير يس ومحا كيغيسا لبدي شروطود شروط كود waxay dhowl ban meesh ku jira yes kan dhowl ban waa ku jira kan dhowl ban waa ku jira haye shuruuda labaad waxay labada carbon oo dhowl ban ka dhaxeeya ma yihiin kuwa different groups ay ku dhagan yihiin mise same groups ku dhagan yes kan waa aqbalaya laba group ku dhagan waa hydrogen iyo chlorine kan waa aqbalaya waa chlorine iyo hydrogen kan sidoo kale waa aqbalaya waa chlorine iyo hydrogen kan waa aqbalaya chlorine iyo hydrogen halka maxaa ka marka labadu marka waa stereo isomers oo geometric stereo isomers way okay haddaba markaas waxaan eegayaa marka ma cis baa mise waa trans ama keebaa trans keebaasa ah cis kan marka waxaan leenahay waxaan eegayaa labada hydrogen waxay isku yihiin kan opposite dabcan dee labadii chlorine tan opposite noqonaya haddii marka labada hydrogen ta ay opposite noqdaan marka waa trans macnaheedu maxaa weeye waa opposite baa laga wadaa trans marka waxaan leeyahay marka magaciyo sidiisii soo qaadanaya waxaan ka horeysiinayaa trans waxaan leeyahay trans 1,2 dichloroethene kana labadii hydrogen ta isku dhinac bay xigeen labadii chlorine tan isku dhinac bay xigaan mar haddii labadii hydrogen isku dhinac soo xigaan marka waxa la hayaa cis baa la hayaa sababtoo ah kan haddaan maroojiyo lama maroojin karo oo hydrogen ta kor mari ma maray mayso sababtoo waa maxay dhowl bonkan diidaya inuu wareego cannot be rotated soo markaa saas markaa permanent ku yahay marka waxaan leenahay marka waa labadii hydrogen ta isku dhinac haddii xigaan waa cis 1,2 dichloroethene haddii isku soo horjeedaan maxaa la hayaa waa trans 1,2 dichloroethene example labaad baasha la yiraahdo butene baasha la yiraahdo butene baasha la yiraahdo butene oo kaarboonka labaad u haysto dhowr ban ku aataa kow labo xagga hadda ka tiriyana waa kow labo kaarboonka labaad u haysta kan haddaan tiriyo kow labo kaarboonka labaad u haysta kan haddaan tiriyo kow labo kaarboonka labaad u haysta kana sidoo kale haddaan tiriyo waa kow labo kaarboonka labaad u haysta dhowr banku xagga haddaan ka tiriyana waa kow labo kaarboonka labaad u haysta kana sidoo kale kaarboonka waa kow labo kaarboonka labaad u haysta dhowr banku xagga haddaan ka tiriyana waa kow labo kaarboonka labaad u haysta marka maxaa loo yaqaan marka magaceeda butene oo kaarboonka labaad u haysta dhowr banku butene has two geometric stereoisomers given below butene baasha la yiraahdo waxay leedahay labo geometric isomer oo halakan aan ku muujinay waa kana kani waa kan labadan kaarboon bu dhowr ban ka dhaxeeya kaarboon koowaad iyo kaarboonka afraadna waa ka marka kii labaad iyo kii saddexaad buu ka dhaxeeya marka kan waxa ku dhagan kaarboon iyo hydrogen la methyl buu noqon kan waa kaarboon baa ku dhagan isaga xagana hydrogen kanna maxaa ku dhagan xaga hydrogen xagana kaarboon baa kaga dhagan marka waxaan eegaynaa labada hydrogen ta meeya waa tan iyo tan maxay isku yihiin opposite marka muxuu noqonayaa trans butene baa leena marka waa trans butene waayo waa trans sababtoo labadii hydrogen maxay isku yihiin opposite ayay isku yihiin marka waa soo skeletal formula qaabka z-kii uu noqonayo marka skeletal formula halkan maxaa weeye waa z ayuu noqonayaa qaabka z-ku ismayo waa trans halkan waxaa ku dhagan hydrogen bay noqotay ku qarsoon xaggana hydrogen baa ku qarsoon marka waxay isku noqonayaan opposite isku noqonayaan waa markii skeletal formula loo qoray kana waa displayed formula u qoray kana soo fiiri labadii kaarboon dhowr ban ka dhaxeeya waa kuwa kaarboonka labaad iyo kan saddexaad buu ka dhaxeeya haddaa xag ka soo tiriyo kow labo saddex afar kaarboon wey haddaa xag ka tiriyana kow labo markasta laba iyo saddex buu ka dhaxeynaya markaa kaarboonka labada kaarboon marka dhowr banka uu ka dhaxeeyo labadii hydrogen oo ku dhagan oo guud baan ka dhiga waa kuwa guudka midabka guudka maxay ku yaalin isku dhinac hoos bay labada soo xigaan ama kor bay wada xigi karaan waa meeshii haddii marba isku dhinac xigaan kan laakiin maxay ahayn labadatan opposite isku ahay marka waa trans magacii butene ahaa maxaa laga horeysiiyey oo kaliya transkaas muxuu kuu sheegayaa stereoisomerismkiisa ayuu sheegayaa marka trans butene buu ahaa laakiin kuwa kan maxaa weeye labadii hydrogen ta isku dhinac bay soo xigaan marka maxaa la hayaa cis butene marka maxay leedahay laba isomer oo geometric stereoisomers kan maxaa la hayaa trans butene kan maxaa la hayaa cis butene markana wuxuu u qoran yahay skeletal formula waa kuwa labadii hydrogen halkan ku qarsoon yihiin xagga iyo xaggan
sida weelka moodaa weel godan oo kale ayuu la mid noqonaysaa halka marka hoos bay ku yaaliin labadii hydrogenta kana waa double bond way marka maxay noqdo waa kan wuxuu noqonayaa qaabkan u samaysan waa cis kan zigzag ah wuxuu noqonayaa waa trans marakan waa kan iyadoo haddana aan ka dhigay structural formula marakan wuxuu u qoran yahay displayed formula marakan waa skeletal formula marakan waa structural formula maarta bal marakan aan eegno labada carbon kood waka carbon ka labaad booysa double bond hadda waxa ka soo tiriyana koow labo noqonay marka waa afar carbon koow labo iyo saddex iyo afar afarta carbon ka waa kan afarta carbon marka labadan 2 iyo 3 iyo ka dhaxaya double bond waa sidoo kale 2 iyo 3 maadaama uu ka dhaxayo labada hydrogen waa kuwa kan oo ku dhaganaa labada carbon double bond uu ka dhaxayo labada hydrogen waxay xigaan isku dhinac soo xigaan maxaa la yiraahdaa waa cis conformation ama cis isomer ayuu noqonayaa marka maxaa ka horeysiinaysa marka magacii cis kan oo kale way waa kana cis butane in buu noqonayaa waa daay laba hydrogen xigaan haddii iska soo horjeedaan waa kan hydrogen mid waatan midna wata haddii iska soo horjeestaan maxaa la yiraahdaa marka waa trans conformation iyadana maxaa la yiraahdaa trans baa ka horeysiinaysa muxuu noqonayaa trans butane marka saddexaas iyo saadanta u qor ama structural waxa u qoraa display formula ama skeletal formula ama structural formula labada waa loo qori karaa markaas maxaa eegaysaa labada hydrogen ee ku dhagan ee double bond ku dhagan labada carbon ee double bond ka dhaxaya labada hydrogen oo iyaga ku dhagan ayaa eegaysaa haddii isku dhinac xigaan waa cis haddii isku soo horjeedaan waa trans sidoo kale maxaa la isticmaali karaa e iyo z wasla meesha e iyo z bal iyagana aragno e z isomerism marka always come iyaguna maxay la yimaadaan come with trans ka raacaan trans hadduu yahay sidoo kale e z loo sheegi karaa way israacayaan e bari stands maxay u taagan tahay for anti-gegen buluug baan ku qoray anti-gegen oo macnaheedu yahay which means enemies or opposite way iska soo horjeedaan wey marka e-du maxay raacaysaa trans ka de la trans ka opposite buu ah marka molecule hadduu trans yahay sidoo kale muxuu noqon karaa e buu noqon karaa marka haddaad tirahdo e isomer iyo haddaad tirahdo trans isomer waa isla meesha marka haddaan marka keeni aan dib ugu noqono kan maxay ahayd trans butane in maxaan dhihi karaa e butane in ilaa waxaa isku mid ah transka iyo waxaa isku mid ah e-da way israacayaan iyagu marka wuxuu ku yidhi e stands for anti-gegen ereyga gariga weeye anti-gegen oo macnaheedu yahay enemies or opposite z stands for z-kana wuxuu u taagan yahay zuzamen which means taasoo macnaheedu yahay same side or together isku dhinac ama wadajir ayay la macno tahay iyadana maxay raacaysaa marka dee cis bay raacaysaa marka molecule-ka hadduu yahay cis sidoo kale muxuu noqonaa z baa dhihi karaa hadduu yahay trans sidoo kale maxaa dhihi karaa e waayo to determine uu ku yidhi marka waxaa dhici karta marka e iyo z waxaa la isticmaalaa haddii ka waran molecule-kaysan hydrogen ba ku jirinba kuwan cis iyo transka hydrogentaa badan ismaan ka waran haddiisan wax hydrogen aysan ku dheganayn labada carbon marka waa in wax ku khasbantay inaad isticmaasho e iyo z baa isticmaalaysaa haddii laakiin hydrogen ay taabo labadaba qaadi ka dhaca oo haddii ka dhaca e-na waa yahay transna waa yahay cisna waa yahay z-na waa yahay oo maxaa israaca e-da iyo transka maxaa israaca cis iyo z laakiin hadday dhacdo in ay meesha wax hydrogenaba aysan ku dheganayn labada carbon laga hadli maayo hydrogenada carbonada kale waxaa laga hadlayaa waa hydrogenta ku dhegan labada carbon ee double bond ka dhaxayo hydrogenada ku dhegan baa laga hadlayaa marka haddii ka waran labada carbon ee double bond ku jira aysan wax hydrogen ku dheganayn sida iyaga marka waxa la isticmaalayaa e iyo z cis iyo trans marka ma shaqaynayaan to determine marka the ez we use CIP rule si aan u go'aamino ez isomeriska waxaan isticmaalaynaa xeerka loo yaqaano CIP rule oo loo yaqaano maxaa loo soo gaabiya can inlog prilog can waxaa laga soo qaatay c inlog waxaa laga soo qaatay I prilog waxaa laga soo qaatay p waa nin magaciisa way wax kan can inlog prilog rule
this rule buu states xeerkan muxuu ku sheegaya the atom with the highest atomic number labada atom ee kaarboonka ku dhagan kaarboonka laga hadlayo waa kaarboonka dhoolban ku dhagan yahay laba atomiska ku dhagan mid kale highest atomic number midka atomic numberka badan on the carbon double bond kaasoo double bond ku dhagan has the priority waxa iska leh priority-ga ama hortabinta waxa iska leh oo mudnaanta la siinayaa labada shay ee ku dhagan kaarboonada double bond ka dhaxaya shayga ku dhagan waxa la eegayaa keebaha atomic numberkiisu badan yahay waa kana marka labada tan yaa ku dhagan hydrogen iyo carbon hydrogen atomic numberkeedu wuxuu yahay waa 1 chlorine waa maxay waa 17 marka chlorine atomic numberkeedu waa uu ka badan yahay hydrogen sida daadi priority yaa iska leh waxa iska leh chlorine ta iska leh xagana yaa ku dhagan chlorine iyo hydrogen baa ku dhagan yaa atomic number badan hadana chlorine ta badan sida daadi yaa priority iska leh chlorine ta iska leh labadii marka priority lahaa maxay isku noqdeen opposite marka muxuu noqonayaa e isomer waayo iska soo horjeedaan waa enemies way iska soo horjeedaan hydrogenadina waa opposite waa trans marka moleculekan haddaan ka eego hydrogenada wuxuu noqonayaa trans haddaan ka eego chlorine muxuu noqonayaa e isomer labada kana soo eego b midkii labaad okay isagana waxay yiri yaa chlorine iyo hydrogen yaa atomic number badan chlorine hadda xagana chlorine iyo hydrogen waxa atomic number badan chlorine labada marka dhankan yaa priority iska leh chlorine priority kale kana yaa priority qaadaya chlorine priority iska leh marka labada priority lahaa maxay noqdeen isku dhinac bixigaan labada hydrogen isku dhinac bixigaan haddaan marka labada hydrogen ka eego wuxuu noqonayaa moleculeku waa 6 way haddaan labada chlorine ka eegana wuxuu noqonayaa z ku noqonayaa marka maxaa israaca markastoo moleculeku uu 6 yahay sidoo kale wuxuu noqdaa z isomer markastoo uu trans yahayna wuxuu noqonayaa e isomer ayuu noqonayaa the molecule A wuu waa midkan A baan ku qornay iyo B baan u bixinay molecule A above buu molecule A ka above ee kor ku yaala is trans wuxuu noqonayaa trans according to the hydrogen atoms marka loo eego hydrogenada way iska soo horjeedaan marka hadda hydrogenta ka eegto wuxuu noqonayaa trans but it is e isomer laakiin wuxuu noqonayaa e isomer in terms of chlorine atoms hadii laga eego chlorine hadda ka eegto waxa leedahay waa e isomer hadda hydrogenada ka eegtana wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan trans isomer sidoo kale the molecule B oo kan ah is 6 buu noqonayaa in terms of hydrogen atoms hadda hydrogenada ka eegno labada hydrogen isku dhinac bay xigaan marka 6 buu noqonayaa but it is z isomer wuxuu noqonayaa z isomer ayuu noqonayaa in terms of chlorine atoms hadii laga eego labada chlorine atom hadii laga eego wuxuu noqonayaa maxay z isomer marka maxaa ka cad markastoo moleculeku yahay trans wuxuu noqon karaa e isomer markastoo uu 6 yahay wuxuu noqon karaa z isomer laakiin waxa dhici kara inuu e yahay uu trans noqon waayo sababtoo ah haddaysan hydrogen meesha ku dheganayn markaas ma noqonayo waxa la yiraahdo halka haddii hydrogen ta ku bedelo haddaan hadda hydrogen ku bedelo waxa la yiraahdaa carbon tanna aan ku bedelo nitrogen marka waxa hydrogen meesha ma yaalin marka trans ma isticmaali karin marka waxa la isticmaalaya e isomer oo maxaa la eegayaa labada carbon kasta atomiska atomic numberkoodu badan yahay ayaa eegaysa yaa atomic number badan kana kuwa kan yaa atomic number badan ayaa la eegaya laakiin haddii hydrogen ku jiro trans marka waa la dhihi karaa marka wuxuu yidhi this shows me that tani waxay kusaysaa haddii taas macnaheedu waxa 6 and z come together yaa israaca 6 iyo z baa israaca while trans and e are together sidoo kale maxaa israaci kara transka iyo e da israaci kara so if the molecule is 6 molecule hadduu 6 yahay it is also z buu noqon karaa and if it is trans hadduu trans yahayna it is also b wuxuu noqon karaa e isomer ayuu noqon karaya marka okay marka haddii aad hydrogenis aysan meesha ku jirin e iyo z baa isticmaalaysaa haddii ay ku jirta hydrogenna trans iyo 6 baa isticmaali karaa e iyo z sidoo kale waa isticmaali karaa marka labadaba ku apply garan karaa laakiin haddii hydrogen meesha aysan ku dheganayn
marka waxaa ku khasbantahay inay isticmaasho e iyo z ayaa isticmaalaysaa halkaas waxaa inoo joogaya casharkeeni insha allah labaad ee maantay aan halkan ugu talagalnay insha allah wixii kalena waa sii socon doonaa alcoholiskii waa inoo haray iyo carboxylica insha allah waa dhammaystiraynaa ka faa'iidaysi wanaagsan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu